booliska iyo kuwa militariga ku sugan waxaan sidoo kale iyadana dul istaagi doonaa codsiga odayaasha dhaqanka ee beelaha idoor oo waagii horena u sacabatumahayay colaad iyagoo weliba hadallo xanaf leh baraha bulshada marinaya kuwaasi ay ku sheegayeen inay dhagax buur goday qabri dahar jigjiga dhammaan ay qabsan doonaan ogaadeenna ay ishayaan haddaba codsigan cusub ee ay ka soo saareen shirkoodii maalmihii ugu dambeeyey uga socday tuulada laanqayr oo ka tirsan degmada xarshin ee gobolka faafan ayaan dul istaagi doonaa waxa uu ku saabsan yahay codsigaasi iyo sidoo kaleeto gogasha ay ka dalbadeen madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida Mustafa Cagjar ayaana si qodo dheer u qaada dhigi doona hadwalayno waxaan sidoo kaleeto dul istaagi doonaa codsigii ay direen maamulka Somaliland ee ay u direen dowladda federaalka Ethiopia ayna sheegeen inay kala hadlayaan xaaladii ka dhacday iyo dagaaladii ka dhacay deegaanka Dawcaley iyo sidoo kale codsiga ay u direen international community-ga ee ayadana ay ku sheegeen inay kaga codsanayaan inay soo farageliyaan dagaaladii ka dhacay tuulada Dawcaley ee degmada Xarshin ee gobolka Faafan maxaa ka soo kordhay codsiyadii ma laga soo jawaabay xagee ku dambeeyeen guddigii maamulka Somaliland ay u xil saareen deegaankaasi iyo dagaaladii ka dhacay iyo sidoo kale arrintii ay ku sheegeen in la xasuuqay maati iyo caruur maxay soo kordhiyeen xukuumadda Cabdiraxmaan Ciro guddigiisa halkay ku dambeeyeen iyadana waan dul istaagi doonaa waxaan idin la wadaagi doonaa xogo badan oo halkaasi ku duugan iyo sidoo kale xaaladda ay ku dhamaatay dagaaladii ka socday deegaanka Dawcaley sida ciidanka new booliska dowladda deegaanka Soomaalidu ay u fashiliyeen kooxihii argagixisada ee damacyada guracan watay ee doonayay inay khalkhal amni darro ay ka abuuraan deegaanadaasi ka tirsan gobolka Faafan iyo sidoo kale waliba gobolka Jarar ayaana muqaadkan ku qaada dhigi doonaa hadwalayno waxaan sidoo kale dul istaagi doonaa xogaha ama waxyaabaha laga filan karo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida oo hadda codsigii isagu uu iskugu soo ururay oo odayaashii colaadda u sacabatumayay ay iyagoo kabaha gacmaha ku wato ay isku dhiibeen waxyaabaha laga filan karo xukuumadda Mustafa Cagjar ayaan iyadana dul istaagi doonaa hadwalayno soo dhawaada muqaalka like saara aragtidiina noogu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownay tuulada Dawcaley oo dagaalaba ay ka dhaceen asbuucyadii la soo dhaafay ayna dhaxmareen kooxo argagixisa oo ka soo gudubay dhinaca maamulka Somaliland iyo ciidanka new booliska dowladda deegaanka Soomaalida ayaa maalmihii ugu dambeeyay xaaladeedu ay iska deganay kadib markii ciidanka new boolisku ay soo afjareen maleeshiyadkii la rumaysnaa inay ka soo gudubeen dhinaca maamulka Somaliland wax la dilo wax la qabto iyo wax gudbo oo dhinaca Somaliland u cararo ayayna noqdeen maleeshiyaad la sheegay in sanadkii ugu dambeeyayba deegaankaasi lagu abaabulahayay maleeshiyaadkan ayaa soo tuubaraacay oo ku soo gadbaday hanaan qabiili ah oo markaasi ay ku leeyihiin dheeraha isaaq oo tabasho qaba oo xukuumadda ay gacan bidixaysay isla markaana aan doonaynin inay ogaadeen maamulaan dowladda dhaxana inay hoos tagaan doonahaya ayaa maleeshiyaadkaasi laba la yidhi sida ay iyagu hadalka u dhigeen balse baaritaan sirdoonka dalka Ethiopia iyo sidoo kale sirdoonka sirdoonka dowladda federaalka Ethiopia iyo sirdoonka dowladda deegaanka Soomaalidu ay iska kaashadeen ayay ku soo wada saareen in maleeshiyadkaasi ay ahaayeen kooxo argagixisa oo la mid ah kuwii 2 sano ka hor soo galay deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Afdheer isku dhaqan iyo isku hanaan iyo isku nooc ayay noqdeen baaritaanka la sameeyay kooxdaasi gobolka Afdheer soo gashay iyo kuwa soo galay deegaanka Dawcaley oo ka tirsan degmada Xarshin ee gobolka Faafan si kastaba laanaha amniga oo markii hore ilduuf iyo sidoo kale hadacsanaan ay ku dhacday intii maleeshiyadkaasi abaabulahayeen ee deegaankaasi lagu soo daadgureynay ayaa maalmo kooban ku soo afjaray kooxahaasi wax la dilo wax la qabto iyo wax cararo oo dhinaca Somaliland u cararo sida horey bay ku sheegay ayaana laga dhigay kooxihii argagixisada ahaa ee amni darrada deegaankaasi ka waday intaan la soo afjarin waxaan ogsoonayn inay dileen hogaankii nabadgeliyada ee degmada Dawcaley ee gobolka Jarar iyo sidoo kale saraakiil badan oo ka tirsan ciidanka new booliska waxay sidoo kale laayeen ciidan ka tirsan new booliska oo tiradooda lagu sheegay in ka badan 30 iyo dhowr qof ayay hal meel ku dileen waana ciidankii ammaanka deegaankaasi ilaalinayay oo iyagu markaasi aan ka warqabin maleeshiyadkan hubaysan ee goobta lagu abaabulay
balse odayaal iyo sidoo kaleeto xaalado isku dhac qabiila ayay ciidanku si hoose u xalinayeen oo ma aysan sugayninba meeshan inay argagixiso iyo ciidan ay ku aasaasan yihiin laga aasaasay oo soo weerari kara ma aysan filayn dadkii deegaanka ee amnigooda ay u dhaarteen ilaalintooda ay u dhaarteen ayay moodayeen oo keliya waxa deegaankaasi ku sugan ugu dambaynna waxay ilaahay suurto geliyey in xukuumaddu ay amar ku bixiso in gebi ahaanba kooxaha lasoo afjiro xuduuddana la sugo amnigiisa oo ciidanka new booliska la geeyo taasoo markii horeba xukuumaddu ay ka ilduuftay oo ciidamo new booliska aan la geynin balse hadda ilaa iyo balligubadle xuduudda dheer ee somalilan uu la wadaaga dowladda deegaanka soomaalida ayaa ciidamada new booliska iyo sidoo kaleeto ciidanka militariga la geeyey si amniga shacabka deegaanka soomaalida loo sugo kooxihiina maalmihii ugu dambeeyey waxay iska abaabulhayeen oo ay hadallo iyo sidoo kaleeto ay wararka hanjabaad ka soo saarayeen duleedka degmada balligubadle oo markii horeba deegaanka laga soo abaabulay ee la rumaysanyay inay kasoo gudbeenna ahayd ayayna maalmihii ugu dambeeyey kusoo bandhigayeen ciidankooda iyo sidoo kaleeto hanjabaaddooda iyo hadafkooda ay doonahayaan inay ku carqaladeeyaan amniga dowladda deegaanka soomaalida intaasi kadib dhinaca dowladda deegaanka soomaalidu baaqiyay direen oo xukuumaddu waxay ugu baaqday dadka shacabka ee dowladda deegaanka soomaalida inay la shaqeeyaan laamaha amniga inay ka fogaadaan wax walba oo amniga khalkhal gelin kara inay aan lagu soo dhexdhuumanin oo haddii lagu soo dhexdhuunto ama tuuladii ama deegaankii ama qoyskii ama beeshii lagu soo dhexdhuunto in ay suurtagal tahay howlgalka lagu qaado inuu iyaga uu saameeyo sida dawacaley dadkii shacabka ahaa ee lagu soo dhexdhuuntay lasoo tuubaraacay ee qabiil ahaanta lagu soo raacay ee isaaq ahaan loogu soo dhuuntay ay saamayn ugu yeelatay dagaaladii halkaasi ka dhacay oo weliba dadka shacabka dhimasho iyo dhaawacba uu ka soo gaadhay intii halkaasi labada dable ay ku dagaalamayeen ciidanka deegaanka iyo kooxda khawaarijta ay ku dagaalamayeen intaasi kadib odayaashii u sacabatumahayey dagaalka sokeeye odayaashii u sacabatumayey amni darro inay ka abuuraan deegaanka soomaalida odayaashii u sacabatumayey inay kooxo hubaysan ay soo geliyaan deegaanka soomaalida odayaashii u sacabatumayey inay deegaankan uusan ka mid noqonin deegaanka soomaalida iyagoo ujeedooyin kale leh odayaashii lahaa dds lama hadlayno ogaadeen lama hadlayno way fadhiisteen shir baa uga socday maalmihii ugu dambeeyey tuulada laanqayr oo ka tirsan degmada xarshin ee gobolka faafan bayaan bay soo saareen waxay codsadeen in gogol loo dhigo waxay codsadeen inay wada hadal galaan waxay codsadeen in xukuumadda dds ee mustafa cajar ay wax walba diyaar u leeyihiin waxay codsadeen inay wax walba oo horey u dhacay laga cafiyo ayagoo kabaha gacmaha ku wato ayay mustafa cajar isku dhiibeen jigjigaan imaanayna mudane madaxweyne gogol noo dhig na wada hadalsi aan wada hadalo iska kaandaa codsi bay direen codsigan odayaasha ayaa ku soo aadaya xilli xukuumadda ay amar ku bixisa cid walba oo sharciga iyo sidoo kaleeto kala dambeynta dds ka soo horjeeda in tallaabo laga qaado ciidanka new booliskana hawdka ay sheegayaan lagu fasaxay oo xuduudda dhanba ay soo xidheen maleeshiyaadkiina hal la diliyo hal la qabta laga dhigay iyo hal carara ay noqdeen markay arkeen xaalku siduu yahay ayay odayaashii beelahay dooraya deegaankaasi deganaa ee markii horeba kooxahan soo geliyey ee waxyaabaha kaliya shaydaanku u waxtusiyey ee moodayay in deegaankan argagixiso lagu abuuri karo wayse soo dhiibeen waxaa la yidhi shir baan rabnaa jigjiga iyagoo kabaha gacmaha ku watay usii socdaan waynu eegi doonaa wixii ka soo kordhiya xukuumaddu sida ay ula tacaamushiyo sida ay u qaabisho iyo waxyaabaha ay soo dhigtaan iyo codsigooda iyo waxa ay doonayaan iyo sida ay uga laabtaan waxyaabihii hore ee argagixisanimadaha ay ka dambeeyeen deegaankooda lagu soo abaabulay ilaa gurigaada haddii loogu imaado niman argagixiso madax duuban adoo la sheekaysanaya ama gurigaada aad cunto ka siinayso inta argagixiso unbaa taadigana dee isku mid unbaa tihiin marka bal sidaa ay waxa weye waxa ay la kulmaan iyo sida xukuumaddu ay u qaabisho waynu eegi doonaa dhinaca kaleeto waxaa jiray codsiyo xukuumadda somalilan ay dirtay international community u dirtay waxay u dirtay NGOska adduunka u dirtay deeq-bixiyaashay u direen dowladda federaalkana way u direen oo waxay dhaheen dowladda federaalka ayaan kala hadlaynaa xaaladda dawacaley iyo wixii ka dhacay deegaanka soomaalida iyo xukuumadda lama hadlaynay dheheen waxay sidoo kale ka saareen guddi oo golaha guurtiga ka tirsanaayo ay iska saareen oo waxay dheheen guddigana dawacaley wax ka qabanaya
haddaba guddiyadii iyo codsiyadii awey meelay aadeen lama yaqaano dowladda federaalku waxay tiri annaga nooma taallo hawsha dawacaley ka dhacday dawacaley waa deegaanka soomaalida dowlad awood badan oo aan rumaysannahay inay ku filan tahay karti ay ku xalisan taran leh ayaa joogtaa layidhi jigjiga dowladdaas baa xalinaysaa le annaga shaqadaanada maaha layidhi wixii iyaga ka weynaado oo ha dhowto ay noola imaadaan ay dhahaan naga soo nala xaliya oon baan qabanaynaa baa layidhi marka somalilan idinka raalli naga ahaada midda labaad waxaa layidhi deegaanka dawacaley waa deegaanka soomaalida ee somalilan ma aha marka idinka naftigiina dib iskugu noqdaa layidhi oo xishooda halkaas bay horta ka baxeen oo ceeb iyo wejigabax ayay kala kulmeen odayaashii beelaha isaaqe ee waxa weye maamulka somalilan horkacay oo xukumay etoobiya dabadhaqa waxa weye dabanahna haleynay horta taas ceeb bay kala kulmeen dhinacan international community iyo wixii ay la hadleen waxaa layidhi habartan 35 sano lafa wadatay oo ay lahayd international community nala arka waa nala xasuuqay daarood baana xasuuqay ilaa haddana daarood baana xasuuqay baa laleeyahay isaaqan mar walba la xasuuqi waa maxay baa le midda labaad ilaan gaaladu way taqaanaa qabiilada soomaalida way barteen burburkii soomaaliya la barto wax walba waa la garanaya waxaa layidhi waxaan isaaq baana xasuuqo daarood baana xasuuqayn ba mar walba leeyihiin iyagiina meel walba qorin bay la ordayaan waa maxay baa layidhi duqdii waxaa layidhi raalli naga how cadnay islaam waxaa tahay experience hawlaha u leh joog baa layidhi ceeb baad kala kulmaa lay meeshan DDS baa la yidhahdaa deegaanka soomaalida la yidhahdaa etoobiya la ogaadeen yaa la yidhahdaa waxa weye etoobiya hoos tagaan dowlado waaweyn baa jirta oo meeshan gacanta ku hayseen dowlado meel la geli karo oo xataa lasoo sasawiran kara meehe 5,000 oo qof baa lagu dilay maqale oo aan saa cid u feerisan jirin ilaa axmaarada oo 10,000 oo qof lagu dilay oo aan saa wax u tagay jirin aayar xishooda la yidhi isgaabiya baa la yidhi midda kale meelaha faraha la gelina la yidhi ma aha layidhi meeshan SSC iyo dhulkaas ku haysteen geographically waxaan nahay baalkii ingiriis baan si Allah haydeen ma aha layidhi sheekh joogaa layidhi meeshan waad ku baabaaysaan ha gelina baa layidhi guddigii waxaa la golaha gurtiga qoladii ugu horreysay u tageen ee wakiilada safarada Soomaaliya kule u tageen waxaa la joog waa khaldantiin baa wada khaldan bad haysaan albaabadiina baad garaacanaysaa baa layidhi dawacaley waa deegaan Soomaaliyeed waa Itoobiya ogaadeen yaa la yiraahdaa nimankaas ugu dhawaanina baa la yiraahdaa kala wad baabaaysan aha gelina baa la yiraahdaa qushooda durba marka waa la wada laabtay horta wixii oo dhan iyo codsigii iyo gudiyadii wax ka shaqeynaya ma jiro waxa intaas sii dheer ganacsatadii baa hal mar hoosta la iskaga sheegay waxa leeyahay ka carara Puntland baa la fuulay meesha waxay arkeen cidla dekadii oo xiran xoolihi oo imaaneen waxba aan imaaneen waa la isgaabiyo waxa leeyahay marka aamusa shibdaha baa leeyahay odayaashan marka hadda laan qeyl ku shiray xukuumadda Cabdiraxmaan Ciraad dirtay Mustafa Cajar u tago oo baabaanay waxa leeyahay dadkeena way baabaayaan gaaja ayna layli waxa tiraahdaan arintii halka ka dhacday oo apologies baan bixinaynaa raali gelin baan bixinaynaa laga raali hada oo waxa weeye wixii dhacay halka ka dhacay dib dambe uga dhacays deegaankanadana ciidan dambe laga soo abaabuli maayo dadkii shacabka la laayayna ilaahay ha u naxariisto ciidankiina raali gelin baan ka bixinaynaa iyagana ilaahay ha u naxariisto hawshan sida aan ku damino dadkana aan walaalayno xukuumadda Soomaaliland iyo shacabkana aan isku yeerno ciraa marka waxan ka dambeeyo odayaashan dirsaday oo yiri ka cabiin la gubi meesha way xidhantay waxa rabtaan baa dekadii wata xidhan